السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانت وإسلام يا ولا ليال waxa ku tahay wanaagsan hadii aad tahay markii ugu horeysay aad xaggan soo booqato walaal waxaan ka baryaynaa subscribe siiso gabaleelka furto asxaabtana la sii wadaagto runtii channel-kaygan badan waxaan ka hadlaa waxyaalo social ku saabsan siyaasadna kala ma hadlo waxyaalo qabiil ma aha laakiin waxa adiga ku anfacayo iyo wixii yani nolosha ku soo korna marka runtii waxa rabaa inaan ka hadlo arin yar oo muhiim ah taasoo ah waad ogeeyday maalmood in Somaliland ay baarlamaanka Ingiriiska la horgeeyay in ay ictiraaf heli doonto dabadeetana adigu arrimo siyaasadeed darteed iyo in arranka ka hadla marba laakiin lagu soo celiyay arrinkoodii marka social media waxa soo gashay in reer Somaliland ee luqadda Soomaaliga inay rabaan iska bedelaan dabadeetana fiidiyooyin go'an baa la soo bandhigay taasoo looga hadlayo bal waxaani iyo luqaday soo rabaan inay sameystaan runtii arintaasi arin run ahaantii reality jirta ma aha laakiin waa wax iska malaawaala oo Soomaalidu kulay way iska hadal badan tahay Soomaalidu soo gelisay bal markaan waxaan rabaa insha Allah inaan fiidiyooyin aan eegno oo waxaan maleeyahay xataa inay fiidiyooyin yihiin wax Photoshop bal fiidiyoo ugu horeeya ayaan rabnaa inaan eego insha Allah kaasoo فيديو بدنا سو سميه waxa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Muuse Biix Cabdi iyo ninka imika madaxweynimada u tartamaya Ciro bal marka ugu horeeya ka cirayno insha Allah ku horeynayna runtii waa funny dadka sameeyayna anu ma garanayso oo sameeyay laakiin bal weyn eegin in wax yar dhigay 명성 3호 2호기 위성 발사 성공 12월 10일 평안북도 철산군 소일 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 فيديوهات كيسان ومسؤول مدحوينها مستقبلك ان شاء الله عبد الرحمن عرو رانتي sida loo sameeyay waa si fani marka aad fiirsato dadka qaab waxay moodaan run laakiin waxani waa si fani weyn walaalo wax jira ma aha oo reality ah bal fiidiyooda kale eegno kaasi wuxuu ahaa mudane عبد الرحمن عرو oo luqadiisa cusub ku hadlayay bal ayna eegno madaxweynaha jamhuuriyaddana isaguna markiisa وي أكبر ليش من أخبار نعم هو أولاد حاطي قحو نخو هيفاوس يصير هو مش مكنال بعض مش ناقص مش نخبو ليش بقول هو ما راب أو يروح لا لا وسدي مش لا وسدي عنه حلمات بيدق يا مصاص kaasina oo ahaa madaxweyne Muuse Biix Cabdi oo isaguna soo bandhigay luqadiisa cusub ruuxantii markaas uu fiiriso luqaddu waxay soo yeeshabahdaa luqadda laga hadlo Soomaalida dadka Soomaalida Itoobiya ku nool ama dadka qoomiyadaha Itoobiya qaar ka mid sida Oromada oo kale marka waxaan isiri luqadii baa inta la soo qaaday tii Soomaaliya dhex geliyay ruuxantii waxyaalahani oo waxyaalo faniya qofkii sameeyay ruuxantii waa free clever bal mar kale eegno Muuse hadlaya ليش بقول هو ما راب أو يروح لا لا وسدي مش لا وسدي عنه حلمات بيدق يا مصاص بيدبوط هي يعني لهم أو وسد إيش بوي أكسيرني أخلط إحنا مرات هي قطع موحي لا لا وسد موسى kaasina ahaa madaxweynaha Muuse Biix Cabdi oo mar kale luqadiisa raba inuu ku hadlo runtii waxaan waa asfani walaalo ha u qaadan wax dhaba fiidiyooyin loo faniyo oo soo aan ka soo yara qaatay xagga TikTok dad badan baa u codeeyay oo adigu percentage aad u badan in luqad Soomaaliga la bedelo runtii luqadda Soomaaliga luqad la bedeli kara ma aha mana macquul ma aha in la bedelo oo luqad kale lagu hadlo runtii dadka shacabka reer Soomaaliya ugu xidhan dhamaantood salaamaya marka waxaan rabaa inaan u sheego runtii waxaan waa asfani ma aha wax reality ah laakiin sida ugu badan ee dadku hadal hayeen ayaa ah inay sida noqotay bal waxaan eegaynaa bal luqadda hadaba cusub si uu qormi doonto أكيل بريس لارده بلوكنا كدر لارده برد لارده كل جود كدر لارده سكر بكوتا لارده بسم الله دبواي بلارده هاي واي عشبك لارده توري حواج كدر لارده وحق تبيا لارده دكتور فريدا دايل
tani waxay ahayd sida u qormi doonto markay soo baxdo luqaddu raan saa kuu sheegay walaalo ujeedadana ama gooni kaga mali laakiin wallahi waxaan jeclaystaa inaan kula wadaago waxyaalaha kusoo kordhay social media anigu waxaan kaloo dee iminka markaa waxay noqotay in aan eegno bal madaxweyne Muuse Bixi oo markala hadlaya intaynu falaqaynta u gudubgadin bal video yaro gaaban markala ku tuurano bal sug Muuse Bixi adigu ka daray luqadda wallahi qofka aan ajnabiya wuxuu moodayaa luqad dhaba inay tahay oo lagu yani dadka qoomiyadan ku hadlayaan maxaa yeelay hadalkiisa dibniisa soo celinay waxoo dhan way isku beegay u fiirso bal marka waxaan eegaynaa hadaba sheekadii wixii hore oo dhan waxay noqon doontaa wax aad yani aanad rumaysan karin mar ali marka daawato heestan waa heestii ugu horeysay ee luqadda cusub ee Soomaaliland lagu heeso yaa qaadaya een wadaag بتري جيتار بس يسكسفون وقر كمان يفلوق يبون فقروا لي بياني يليد البياني يليد بيت قضية بطارية دانتية فضحة تيفتي سيدة إبابكي وأنا ربي لفوان لوبغي فانتو لوبغي dad badan baa waxay dhaheen hadaba arrintan waa dhab laakiin walaal waxaan wax reality ma inta kale wad arkaysaa yani heestii ayaa luqad way ku luuqeynayaan yani erayaro kale Soomaali ahaan fahmin baa lagu soo daray laakiin dadka social media ku jira iyo dadka dhalinyarta badanaa boqolkiiba boqol waxay u qaateen inay tahay run waxa la wixii hore oo ahaa wax bar awaala oo laga sameystay dee madaxda ama cod lagu dil mix lagu sameeyay marka heestii marka lagu soo bandhigay dadkeen waxay aamineen inay tahay waxaan wax reality oo jira oo ay tahay reer Soomaaliland luqadoodii cusbayd ay soo bandhigeen runtii waxaan dhan waa joke reality oo qaadan Soomaali waxaan aaminsan anigu inay Soomaali weyn ay jirto laakiin qof kastaaba uu gobol iyo qabiil ka tirsan yahay laakiin ayna macquul aan ahayn inay Soomaaliland goodo ay dawlad gooni noqoto dadka reer Soomaaliland way jecel yihiin inay saan noqoto aniga ahaanteeda waxa ka soo jeedaa Soomaaliland laakiin runtii sida ku socoto yani macquul ma noqon karto inay Soomaali kala goodo Soomaali waxa wanaagsan inay midowdo oo ay Soomaalida hore la yaqaanay laga baqan jiray ay ku soo noqoto waana jecelahay runtii horumarka Soomaaliyeed maanta qurbahan ku noolnahay waxa sida noo galay ee noo kala silciyay waa Soomaalinimada ma aqoonsanin halkan bay ka dhacday dadku runtii dhibaataysan yihiin safaarad la aan jirto dawladii weyneed ee imka ka jirtay Soomaaliyana madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo madaxweynaha ka ahaan runtii wax ay wadankii ka qabanaysan aysan jirin runtii waxyaalahaas oo waxyaalaha looga xumaado sida dibteed burburkii ugu dhacay ma rabna inaan mar kale sii burburno dhammaan Soomaali waxaan rajeynayaa insha Allah taala iyadoo mida inaynu wadankeena isagoo nabada ku wada noqon doono qurbaha dhibaatooyin badan baa jira oo ay kamid tahay in ilmahaaga adigoo arkay la qaadayo aanad ka hadli karin dawlad ku doodaa jirin safaarad ku doodaa jirin jaalid ku doodaa jirin waxyaalahaas waxa kamid tahay burburka Soomaalinimada qurbaha ka haysta marka runtii marabina hadal ku sii dheeraado aad iyo aad ayaan idin salaamaya walaalayaal waxaan rajeynayaa insha Allah inaynu Soomaaliya mid noqon doonto anigoo guuleed oo ku hadlay magaca reer Soomaaliland dhammaan Soomaaliya dhanna waxaan rajeynayaa in maalmaha kamid Soomaaliya mid noqon doonto oo Soomaalidii la yaqaanay